waxaan tagnay dhowr degmo si aan ugu kurgalno xaaladda dadka danyarta ah ee ku nool qaybaha kala duwan ee degmooyinka sida Hodan, Holwadaag, Xamar Jajab, hadda oo Narkiiley iyo Wadajir joogno iyo degmooyinka kale ee gobolka Banaadir qaybo ka mid ah. runtii waxaan caaway maamulka gobolka iyo ku-xigeenada iyo xogayaha guud iyo gudoomiyaasha degmooyinka kulligeen caawa usoo jeednaa inaan ama u diyaarsannahay inaan u diyaar garowno haddii uu roobkaas saameyn ku yeesho qaybo ka mid a shacabka ku nool degmada. gaar ahaan hadda waxaan soo marnay warta Siigaale oo ah warta saameynta ugu badan roobabka markii uu dhaco ay dadku shacabka ku yeeshaan. inta kale waxaa laga yaabaa inay noqoto wadooyin xirma, laakiin ay qaybta degmada Hodan wartaas ay tahay warta ugu weyn ee saameyn u geysata dad shacab oo danyara oo ku nool xaafadaas. maamulka gobolka Banaadir iyo degmada Hodan waxay u diyaariyeen dadkaas haddii roobku uu inta hadda uu da'ay in ka badan waa u tagnay, xaaladooda hadda waa okay, waxba weli ma gaarin, laakiin haddii uu sii socdo ilaa berri laga yaabo inay saameyn ku yeesho noloshooda iyo guryahoodii. marka waxaan u diyaarinay goobo dadkaas ka agdhow meesha ay degan yihiin oo waaxda degmada halkaas ku taala iyo goobo kale oo dadkaas la dejin doono hadduu alla idmo.